kulanti wacan oo wanaagsan idin lahaantii saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaynu kala hadli doonaa 8 qaab oo aad ku guuleysan karto. Number 1 hadaf samaysa iyo waxaad rabto inaad guul ka gaadho waa inuu ahaadaa wax ku anfacaya noloshaada mustaqbal fiican aad ku gaari karto. Number 2 ku dadaal inaad joogtayso ama inaad shaygaas si joogta u barato iskana ilaali waxyaabaha caajiska keena sida bilaabid la'aanta, joogtayn la'aanta iyo inaad bilowdo balse aad dhexda ku joojiso. Number 3 iska ilaali boodboodka sida inaad bishan xirfad bilowdo haddana aad aragto xirfad kale oo la ammaanayo kadibna aad tii hore ka booddo oo aad bilowdo tii lagu ammaanay. Marka hore ee aanad bilaabin xirfad fiican dooro kadibna ka midho dhali oo ha ka leexleexan. Number 4 iska ilaali isticmaalka badan ee moobilka iyo waqtiga badan ee aad la qaadanayso saaxiibada waxaanad u beddeshaa labadoodaba dhinaca fiican. Moobilka u adeegsa inaad baraha bulshada wax kaga barato kadibna geli waqtigaagii aad wax ku daawan lahayd inaad wax ku barato. Saaxiibadana ka dhiga saaxiibo hadaf leh oo raba inay horumar gaadhaan si aad isu kaashataan waxna aad u wada barataan. Guud ahaana iska yaree saaxiibada badan inta ku anfacaysa ka xulo inta kalena salaantu ay idinka dhaxayso. Number 5 waqtigaaga maamulo oo nidaam u samee waayo waxa ugu qaalisan ee aad haysataa waa waqtiga iyo caafimaadka. labada haddii aad isla hesho adaa noloshaada meel fiican gaadhsiin kara. haddaba waqtigaaga ku buuxi wixii ku anfacaya adduunka ama aakhiradaada dambe. Number 6 ha isku badin hadafyada aad rabto inaad guul ka gaadho. dooro inta ugu muhiimsan ee ay tahay inaad gaadho siday u kala muhiimsan yihiin u kala horreysii. waxaana doorataa shayo isqaadan kara sida xirfad fudud iyo mid adag halkii aad qaadan lahayd 2 fudud ama 2 adag. waayo markaad midda adag ku daasho waxaad si fudud u qabanaysaa xirfaddii kuu fududayd. kuna dadaal xirfadda adag waayo xirfadda fudud dadka badankooda ayaa barta. taasina waxay hoos u dhigaysaa ama ay yaraynaysaa inaad hadhow shaqo ku hesho. dhinaca kale baro 2 ama 3 xirfadood si fursadaada shaqo helidu u badnaato. wax badan oo aad baratana waxaa ka wanaagsan 2 ama 3 shay oo aad khabiir ku noqoto. qofkana waxa qiimaha u yeelaa maaha muuqaalkiisa balse waa aqoontiisa. Number 7 ku dadaal aamusnaantu waxay ka qayb qaadataa degganaanta qofka iyo inuu si fiican u fikiro isla markaana uu diiradda u saaro waxa uu rabo inuu markaa qabto. intaad aamusan tahay ha ka badnaato intaad hadlayso waayo aamusnaanta waa lagu badbaadaa adduun iyo aakhiraba. Number 8 dhaqaalaha iyo hantida ku soo gasha wax ka mida kaydso. markasta oo aad wax kaydsataa waa markasta oo aad u sii durkayso dhinaca guusha iyo isku filaanshaha. ha noqon qof ay lacagta iyo dhaqaaluhu dhex maraan siday tuumbada biyuhu u dhex maraan. hana ku qancin inaad mushaar fiican qaadato ama inaad boos muhiima kaga jirto shirkadda aad u shaqayso. waayo maalin maalmaha ka mida ayaa timid. maalin maalmaha ka midana waad ka tegi doontaa balse maalintaad ka tegaysaa yaanay la mid noqon maalintaad timid. waayo adduun iyo aakharaba waxaad kaydsataa wax kuu tara. haddaba qodobadan ku dadaal kana mid noqo guulaystayaasha. Welcome to Mamoo's Media Studio and subscribe my channel, like and share. And you welcome again and again, thank you.